ciidamada difaaca Puntland gaar ahaan kuwa badda ee BNPF ayaa gacanta ku dhigay rag siday budada laga sameeyo walxaha qarxa kuwaas oo ay rabeen inay soo geliyaan deegaanada Puntland waxaana lagu qabtay degmada xeebeedka Eyl. Waa khatar weyn oo lala damacsanaa in Puntland la soo geliyo budadaas. Haddii Puntland budadaas la soo geliyana waxa sahlanaan lahayd in kooxahaasi ay samaystaan qaraxyo kala duwan oo lagu waxyeeleeyo dadka shacabka ah ee reer Puntland. Inta badan deegaanada Puntland wax qaraxa kama dhacaanin, waana dhul inta badan amni ah. Waxaana sababay ayaa la oran karaa ciidamada difaaca Puntland oo bari iyo bad labadaba heegan kaga jira. Waxayna arrintaani muujinaysaa feejignaanta ay ciidamada difaaca Puntland ay ku jiraan maadaama badda Eyl oo ah meel fog oo nugaal ah laga qabtay. Waxaana la filayaa in ay kooxahaasi yihiin kooxaha ka dagaalamaya buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland. In masaafada intaa la eg waxa weeye oo mudug iyo bari u jirta in intii la damco in laga soo geliyo walxaha qarxa haddana ciidamada difaaca Puntland ay iska difaacaan waxay muujinaysaa feejignaantooda ay ciidamada difaaca Puntland ay ku jiraan.